Warigan jiiraankayga ayaa i siiyey ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa walaalaha inay soo kaalmeeyaan cunug oo xanuunsanna waan haystaa anna waan xanuunsanay biyihii baadni midna ma hay walaalaha muslimiinta intaasaan ka codsanayaan gabdhaha iyo wiil qof walba si ayuu u nool yahay dunida dusheedana u saaran yahay. Aasiya waxay ka mid tahay dadka nolosha aadka ciriiriga ugu ah. Waxay haysataa caruur balse caruurtu ma hayso waxay haatan ay ku dabarto caano cunno iyo weliba hoyba dhibaato weyn ayaa ka haysato. Qaylidhaanteeda ayaa waxay noqotay mid dad fara badan ay indhahaaga soo qabtaan. Waxaan booqday hoyga ay ka degan tahay magaalada Garissa. السلام عليكم آسيا بنقفوا آسيا لا تمشي gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed ayaan ahay oo dhibaataysan ilmana ka xanuunsan yihiin anigana aan xanuunsanaho guri iyo baad midna ma haysto waxaana ka imaaday Muqdisho Kaaraana ka imaaday ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan anna waan xanuunsanahay cunugana uu iga xanuunsan yahay waa 5 sano ayuu jiraa bishana hadda sanadkiisa 5 u bilaabanaya mana kacaayo mana fadhiisanayo sidaas ayaan u dhibaataysanahay Soomaaliyeed oo dhibaataysanahay waxaad inooga sheekaysaa noloshiina waxaad cuntaanay wax noocaas waxaan cunno ilaahay unta ma jirto jiiraanku ma wax yar noo keenaan biyihii ma haysano meeshaan ku dhibaataysana qof aan ka kasayno ma jirto ilaahay ka sokooway ummadda umana caawisaa. Aasiya oo ku dhalatay xeryaha qaxootiga ee Dadaab balse guur u geeyay magaalada Muqdisho ayaa waxay ku soo dhashay halkaasi caruur waxayna halkaasi uga soo tagtay ama ay kala tageen odaygii caruurta ka dhalay muusan daryeelin caruurtii dibna uga muusan soo daba hadlin xaalad adag kadib waxay Aasiya garatay in ay magaalooyinka waaweyn ee dalkani Kenya soo gasho. Waxay timid magaalada Garissa duruuf midii ugu adkeedna halkan ayay ku haysataa. Intaan ka codsanaya inay dhammaantood soo caawiyaan dhiigay kala noqdo. Gaajo macaluul iyo dhibaato aad u fara badan ayay sheegtay in halkan ay ku haysato. Waxay dhammaan dadka muslimiinta meelay joogaanba ka codsatay in ay gargaaraan oo gargaar u fidiyaan cid walba oo aragto muuqaalkan. Waxaa sidoo kale anagu waynu ka sii codsanaynaa inay sii faafiyaan ay gaarsiiyaan walaalaha muxsiniinta ah ee mar walba jecel inay ka qayb qaataan nolosha dadka tabaalaysan. Waa gabar aad u yar oo haysato caruur mustaqbalna lahaan lahayd haddii ay la gargaari lahaa. Duruufta haatan Aasiya haysato waxaa u sii dheer xanuun ayagu qudhigeeda haysto. walaalaha muxsiniinta cid walba oo muuqaalkan uu gaaro waxaan si gaar ah iyo guud ahaaneedba uga codsanaynaa in muuqaalkan ay sii faafiyaan. Faafinta muuqaalkani waxaad ka helaysaa ajir fara badan ayaana kugu sugnaanayo oo walaal waxaa arki doono walaal muxsina oo awooda inuu soo caawiyo. Fadlan haddii muuqaalkan aad aragto sida ayada ay kaa codsatay walaasha Aasiya u samee. Habeenkii wiilasheeda waxay la ooyaan baahi marmar biyaha ayaan iska siiyaa sokor aan ugu darsadaa marka inta muslimiin waxaan ka codsanayaa inay soo caawiyaan. Banaankan furan baa hadda ku haya aan la jiiftaa qof aan aqaano ma jirto wiilkan jiiraanka hadda maxaa dhigi jirayaan imaade shalay maanta ay wiilashan wariyaha imaadeen marka sidaas aan u dhibaataysanahay. hooyo Soomaaliyeed aan ahay meeshan ku xaniman cunugana waa kan iga xanuunsan yahay mana kaco mana fadhiisto biyaan siiya hooyna ma haysano macnaha anaka waxaan jiiraan baan shuhadaa waan marka waxaan aragnay inay duruuf ay haysato muslimiintana meel kasto ay joogaan waxaa lagu codsanayaa gabadha walaasheen inay soo caawiyaan لأن الله سبحانه وتعالى يا قرآن كيسو حوليه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن في الحديث يقول ومن يسر عن معسر يسره الله معناها قفكي يكو أذكسه عسر وحكو يستو ظروف باس كجبتا إلهي سبحانه وتعالى وحكستو وفذينها ومن يسر عن معسر يسره الله معناها قفكي وحفظيه الله سبحانه وتعالى وفذين. marka waxaan rabnaa muslimiinta dhamaan waxaan ku codsanaynaa meel kasta ay joogaan gabadha walaasheen
inay soo caawiyaan waxay u heli karaan gurigi wax walba oo dhan hoygii wax walba ma haysato macnaha waxaa waaye hataa waxaa laga yaaba dabkii inay shideen wixii kaalmaha iyo caawinaad waxaad kala soo xiriiraysaa nambarka shaashada ku qoran oo ah samafalaha haatan u danqaday ee idiin soo gudbinaya mahadsanidin